السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادة مرة لبعض channelka magacaygu waa Khadar Miicaad. Maanta videoga waxaan kusoo qaadanaynaa barnaamij kamid ah barnaamijyada shirkadda caalamiga ee Adobe ay samayso oo la yiraahdo Adobe Lightroom. Asaga laftarkiisu Photoshop ayuu raacsan yahay oo waxa la yiraahdaa Adobe Photoshop Lightroom. Marka waa barnaamij isna aad u fiican oo lagu edit gareeyo sawirrada rawga markaad qaado kamarada aad ka soo qaado in aad halkan la timaado oo aad muxuu ahaadaanay aad dib ugu sii tweak garayso ama aad u sii qurxiso. Marka sawirkan imika sidoo cawlaanka u yahay waa ujeedin waa sawir raw ah oo yani in uu detailkii oo dhan uu wato, haday noqoto madow, haday noqoto cadaan, haday noqoto muxuu ahaadaanay shadows, haday noqoto muxuu ahaadaanay wax aliya wixii aan u baahnayn ee sawirka aan uga baahnayn si aan sawir qurxoon uga soo saarno. Sawirka marada marka ka soo qaado sidan uu eegyahay kamaradaha dambe haddii aad sawir ku qaado oo aad doorato raw ama JPEG haddaad doorato sidan ma noqonayo, isagaa kuu saxaya sidii ugu fiicneed ee u maleeyo processorka markaa kamarada uu wato. laakiin waxa mar walba fiican inaad sawirkaaga ku qaado raw si aad adigu sidii aad rabto ama clientigu siduu rabo aad uga dhigto. marka haddaan casharka toos sii galno waxaan leenahay develop yaan taabanaynaa. horta marka horeysa waxaad leedahay catalog baad furanaysaa, new catalog. marka sawiradu meeshii ay kuugu jireen yaad ka soo qaadaysaa. haddaaban dib u samaynaynaa waa kuwan sawiradu san ay kugu soo baxayaan. kadib markaad doorato marka sidaan markaad dhahdo waa kuwan sawiradii kugu jira meesha dhan ayaa kuu soo baxaya. waa dooranay inta sawir ee aad rabto. okay sidaasaan idhi. marka sawiradii aad dooratay oo dhan buu kuu soo wada saari halkan uu ku keenay. marka sawirka marka aad doorato اللهم صل على محمد sidaan aan dhahaynaa waa ka sawirkaan rabnay, double click yaad samaynay. kadib waxaad tegaysaa develop yaad tegi. develop markaad tegto kolka hore sawirku raw buu ahaa. marka waxaan samaynaynaa haddaan saxsaxaynaa sawirka. marka aad sawirkii aad soo qaadato ee uu halkan ku yimaado waxaad ku bedeli waxaad rabto adigoo slide yaashan baalahan tweak garaynaya. haddaad rabto inaad ku biirisana dhinacaas noqonaysaa midigta, haddaad rabto inaad ka yaraysana dhinaca bidixda noqonaysaa. marka imika sawirkan xoogaa mugdi yar baa ku jira, exposure-kan yar biirinaynaa. waxaad samayn alt yaa taabani. alt adigoo haya ayaad bahalkan midig ama bidix aad u riixi sidaa ama sidaa. marka waxaad samayn midig baad u riixi ilaa intay meel cad kuu soo baxayso sidaas oo kale. imika dhulkaa yar caadi noo soo baxo waxay ka dhigan tahay sawirkaas waa sidii uu cad yahay. laakiin waan sii wadnay xoogaha. marka dhulkana xoogu caddaanaya in yar baan soo celinaynaa. something like that. haddeer meeshan xoog bay u caddayd markii aan sii wadnay cabaar. hadda laakiin waa macquul something like that. waa taasa. hadda waa kaasa exposure-kiisu fiican yahay. kolka hore wuxuu ahaa muxuu ahaadaanay sawir mugdi ku jiro. hadda waxaan samaynaynaa waan soo yar dhaweysanaynaa. kadib waxaan samaynaynaa contrastiga ayaan ku beerinaynaa oo yacni detailka ama inuu muxuu ahaa sawirka uu soo baxo si fiican. markaad contrast ka rabto kaasaa wada hard isaga dhan ceryaan baa koraysa. laakiin ilaa meelaha iska 25-24 okay waa. kadib waxaad haddana samayn highlight-ka oo meelahaas saa u cad imika ma loo jeedo waxa ka hooseeya. hadday noqoto dhulka dhinacan oo kale hadday noqoto si fiican looguma jeedo. xaggan qoryeer baa loo jeedaa laakiin xaggaas cadda inkastoo yani ay blurry ay tahay, inkastoo ay yani harhar u ku jira inta dambe oo dhan, laakiin haddana inay sidaa xoog u sii caddaato ma kulay detail waxbaa ka hooseeya caddaankaas. wixii ka hooseeyey si aan u soo muujino waxaan samaynaa highlight-ka oo caddaankaasna ayaan hoos u dhigaynaa si uu u soo baxo. kaasa marka hore sidaasuu noqonaa. marka ka yaraysana waa kaasa wajida waxa kuu soo baxaya yacni in yaroo waa wuxuu kuugu daraya kolkor xoog bay u caddeed meeshan. hadda waan ka wada yareynay gebi markuu dhexe taagnaa waa kaasa saas oo caddaa
haddana waa kaasaa waa la arkayaa yani caddaankan wixii ka hooseeyey. kadib waxaan sii wadaynaa shadowska oo ah hadharka dhinacaas oo kale. iminka waa hadh, geedkan hoostiisu waa hadh. hadharka haddaad rabta inaad sii madoobayso waxaad samayn shadowskaad hoos u dhigi mawjada si sii madooba inaan dhulka madoob oo dhan. haddaad rabta inaad hadharka aad caddayso meesha hadhkana asagaad wax yar ku dari sidaas oo kale. iminka 20 baan ku daray. hadhkan xoogaha caddaan buu soo yar noqday, hadhkan kalena caddaan buu soo yar noqday. kolka hore ibir buu ahaa laakiin hadda 20. haddaad sii wado uu sii caddaanaya, haddaad soo yarays gaabisana uu madoobaanaya. marka ilaa iyo waxaan ku daysanaynaa 15 meel 14 iska dhig. haddaan xoog hadhka aan usii caddaynana waxaa waaye hadhkiisii meelihii hadhkii baa yaanan la arkayn sawirka. marka isagana ma fiicna inaad xoog wada caddayso hadhka. caddaanka oo meelaha cadcad in uu maaragtay xoog usii caddeeyo iyo in uu muxuu ahaadaanay. iminka kan kolka hore sidaas ma ahayn. highlightka markaan sameynaynay caddaan buu ahaa. kama jidan saasuu ahaa. iminka waa wada caddaan. hoos markaan soo dhignay waxaa soo baxaya cutubkii marada ayaa soo baxaya oo ah wax detail yani aan u baahannahay ah marka oo sawir la hagaajinayo. haddaan ku noqono highlightkii marka aan ka gudubno caddaanka ayaan hoos yar dhigaynaa isna. waxaad samayn alt adoo haya ayaad hoos u riixi ilaa iyo inta kuu soo baxayo isagana wax meel cad dhibicaha yarar baa soo baxa. hadda meelahaasaan ku daynaynaa sidaasaa bestia. haddana waxaan samaynaynaa madowga blacka alt ayaan taabanaynaa hoos baan usoo riixaynaa ilaa inta meel madow kuu soo baxayso. waxaa siday bluega kuu soo bax markuu kuu soo baxo ayaad faraha ka qaadaysaa. marka waxaa waaye waa best, waa sida ugu fiican sawirka yani. kadib waxaan imanaynaa allahumma salli calaa maxamed -10 iyo noqday madow waan ka yaraynay waan ku biirinaa ka wadaan. haddana texture oo ah jirka imikaba soo qaad baa allahumma salli calaa maxamed meelaha kale dhaawaca yar oo kale iyo meelo yaryar oo maaragtay fin ama wax saas oo dhan texturada waaye waxa soo saara. qofku hadduu finan leeyahay iyo haddii oo nabru ku leeyahay wejiga oo nabarku uu hoos yar gudan yahay oo kale waxaas god yani dalool godka iyo finka meesha taagan labadaas wax lagu kala garto waxaa waa textureka. kadib kalarku markaa jirku dubkiisa un buu saaraa laakiin waxa soo saaraya sawirka shaybabkiisa waa textureka. marka texture hadduu ma baahnin darabti laakiin waa ku biirsan kartaa sidana dhihi kartaa soo ka dhigay mujida eber buu ka dhigayaa sawirkii wuxuu kuu saaraa texture kale. marka ma rabni asaga yani laba oo kale waa macquul. kadib claritygan ayaan ka yaraynaynaa oo dehayskaan wax yar ku daraynaa something like that. kadib waxaan samaynaynaa vibrancekan ayaan u yar biirinaa oo kalaradu inay soo yar baxaan saas way badan tahay. inka marka xoog ka dhigo kaasa aan yani aad u riixo waxaa soo baxaya kalaradii oo ah in aan saa'id uga badinay. marka ilaa adi 7 meelahaas 12 waa okay iska dheh. intaa markaan ka imano tan waa kalarkii waaye ayada uma baahnin. daad ku badisan waad ku badisay, daad ka yaraysana black color baad ka dhigtay oo waxay noqonaysaa black and white. marka tan uma baahnin 0 ka dhig. kadib waxaan imanaynaa allahumma salli calaa maxamed detailka ayaan imanaynaa oo muxuu ahaadaanay aan u baahannahay oo ah in aan soo saarno sawirka bilicdiisa ama muxuu ahaadaanay yani aan waadix ka dhigno sawirka. marka waxaan samaynaynaa horta kow in yar oo sharpening ayaan ku yar beerinaynaa ilaa 73 meelaha iska dheh. haddana radiuskan taabanaynaa. radiuska waxaa waaye adoo sidan markaad leedi ma dareemaysin wax isbedelayaan laakiin markaad alt markaad taabato eed riixdo waxbaa isbedelaya mujida. sidan imika waxaa waaye waa cawlaan isaga dhan sawirku laakiin sidan markaad dhahdo wuxuu kuu soo saarayaa meelihii detailada oo uu effect uu ku sameynayay. marka kana saasaan dhahaynaa okay. maskiga haddaan saa idhaahdo wax xoog isbedel ma sameynayo laakiin markaan aan taabto alt markaan taabto ayuu ii soo saarayaa akaasa dhulku maskigu uu effect garaynayo. marka saasaan ku daynaynaa maskiga
hadda waxaan samaynaynaa shucaaca halkaa ku jira iyo qof shucaaca halkaa ku jira akiid yani waa qasab qofkan uu saarnaanaya shucaaca dhinacan midhan iyo dhinacan iyo shucaaca u saaran yahay marka shucaaca waxa looga biin karaa waxa waaye adigoo yimaada noise reduction waxa ka dhigan tahay noise waa shucaaca reductionna waa ka yarays ama ka yarayn marka isagana waxaan taabanaynaa alt soo bilaa color nooga dhigo aan aragno meesha uu ataagreynayo haddaa rabtid adoo alt taaban baad arkaysaa haddaan imanka meesha u dambeeya geeyo wuxuu isku dasimayaa shucaacii buu ka biinayaa laakiin meesha u dambeyna inaad geysid maa sawirkan imanka bilaa texture iyo noqday yacni waa waxa loo malayaa inaa qalin lagu sawiro oo kale sidan oo kale marka waan soo celinaynaa wax yar si uu xoogaa ula hado texturekiisii ilaa waxaa iska tiraahdaa something like that allahumma salli calaa maxamed asna waxaa jira color oo noise reduction ah colorka isbedela mujida imaksan markaan idhaahdo dhinacaas oo kale aan eegaynaa taasina marka aditan meelahaasaan ka dhigaynaa kadib waxaan imanaynaa contrastiga alt iyo taaban iyadana hadaa rabtid inaad black color ka dhigto oo aragtid meesha uu ataagraynaya colorka iyo contrastiga ku badinayaa marka kaasa colorki saasuu noqday contrastka markuu ku badiyey laakiin waan ka yaraynaynaa waxaas oo dhan uma baahna something like that waayo haddii kale wuxuu bowkaganuu kaa hadlaynayaa bowka waxaa la idhahdaa bahalaha yar iftiinada yar oo kolka hore nal ahaa ama iftiin ahaa kadib marka oo focuska aad saartid subjectiga oo hortaada jooga aad backgroundkana ka dhigtid blur ama shucaac aad ku furtid ayuusan noqonayaa marka muxuu ahaadanay taas ayuu naga hadlaynayaa haddaan mask color noise reduction haddaan samayno waa samayn kartaa laakiin badanka laguma badiyo intaa markaan ka imano waxaan samaynaynaa smoothness detail horta oo ah in muxuu ahaadanay uu noo soo celiyo sawirku detailkii uu lahaa sidii xaadii ama waxaas oo dhan marka ayadana waxaan samaynaynaa wax yar ayaan ku daraynaa color detailkii waaye sorry okay kadibna smoothness waaye so smooth noqdo colorku okay something like that hadda marka sawirkan sidaas ayaan ku habaynay oo anagoo kaliya tabahalahaas yar samaynayna marka hore sawirku wuxuu ahaa allahumma salli calaa maxamed sawir oo shucaac saaran yahay oo raw file ahaa marka adiga ayaa go'aanka iskale mar walba sida aad rabto haddaad rabto inaad cadaanka ku yarayso iyo haddaad rabto inaad cadaanka ka badiso ama madowga aad ku yarayso ama madowga aad ka badiso marka waxaasuu faa'iido ku leeyahay imika sawirkii hore waa kana sidan u wada cawleeyeen sawiradu marka raw file lagu qaado sidan haddaan dhahno oon taabano waa kana arw file oo ah yani raw file marka adi almuhim sawirku marka saan uu cad yahay cawlaanadana ku jira laakiin windows ku saxa hadda imika markaan ku furo muxuu ahaadanay kan waa ka cawlaan waa kolka hore uu saxa hadda uu saxay sidan u malaya windows ku inuu ugu fiican yahay anisan ilama fiicna dhinaca waa madow xaga waa madow sawirka marka jpeg ku qaadi sidoo kale sidan uu kugu saxaya asagii markuu wuxuu sameeyay sawirka si jpeg ahaan uu kugu siin lahayo kale uu sameeyay aniga laakiin san marabi sidan aan aniga habaystay marka labadan sawir imika isku mid maaha so that's why ay mar walba u fiican tahay qofku inuu ku qaado sawiradiisa marka xagaa taabto mujida saas uu cawleen sawirku marka hore haddana markuu ku saxo windowsku sidan uu kugu siinaya madowga badan leh aniga marka san marabi sidan aan ka dhigtay backgroundku wada madow yahay gabi wixii dhan soo saaray imika cadaanka iftiinka xataa qofka si fiican baa loo arkayaa marka kadib waxaad samaynay file export xaggan waxaa taabanay kanana imika samaystay jpeg ka dhigtay waa sawirka haddaad rabto aad rabtid inaad u save garaysid meesha destinationka aad rabtid in aad muxuu ahaadanay aad ku save garaysid specific folder haddaad meel aad rabtid inaad rabtid taabatid imika sidan aan dheh anigu
example yaan dhahayaa dhinacaan dhahayaa dooro kadib muxuu ahaadaanay sidan aad soo soconi اللهم صل على محمد صورك فورماتكيسا aad rabtid JPEG hadaad rabto PNG waxa waxaad jeceshaa rabtaa yaad ka dhigani kadib waxaad sameeyni اللهم صل على quality-ga 100 baan ka dhigtaa anigu اللهم صل على محمد hadaad rabtid limit inuu inta ka badan sawirku xaganaad ku qoray limitka laakiin aan limit marbi halkan kaliya 100 ka dhigay اللهم صل على محمد tana waxa waa resize hadaad rabtid inaad size-ka aad bedeshid marbi inaan bedelo size-ka kadib waxaad taabanay export waa kana marka sawirkeeni bilicda oo jeeda tii hore haddaan isku fiirino iyo sawirka tan farqigaas u dhaxeeya waa kuwaas labada sawir farqigaas u dhaxeeya kan waxaan sameeyay waliba waxaan idhi muxuu ahaadaanay crop yar baan ku sameeyay oo aan intaas aan kaga tuuray dhinacaas muxuu ahaadaanay اللهم صل على محمد erkaas iyo iftiinkaas iyo dhulkan oo in yar aan hore u durkiyay marka waa kaasa labadan sawir farqigaas u dhaxeeya kan anaga edit gareysanay kanna waxa waaye windows kan oo edit gareeyay ee geeska markaan taabto in riixo ayaad arkaysaa inuu muxuu ahaadaanay cawlna kolka hore oo sawir uu ahaa markuu sawirku row yahay waxa waaye asaga dhan wuxuu ku sidaa wixii macluumaad u baahnayd laakiin waa shucaac baa saaran saasoo kale waaye adu markaad rabtid inaad hadhow sii habaysatid yaa row lagu qaada laakiin haddii aad leedahay JPEG baan ku qaadanayaa JPEG-gaasan yaan muxuu ahaadaanay sawirku rabaa saanu kaaga dhigaa JPEG-ga marka waa kaas maanta waxaan faa'iideysanay sida barnaamijka Lightroom-ka muxuu ahaadaanay loogu edit gareeyo muxuu ahaadaanay sawirada iyo in uu raw file iyo JPEG farqi u dhaxeeyo oo badan hadaa professional aad tahay ay tahay inaad ku qaad sawiradaada raw file oo aad rabtid hadhow inaad dib u sii habaysid haddii aad JPEG ku qaad waad ku habayn kartaa Lightroom laakiin sida imika aan ugu habaynay effective uma aha oo sidan oo kale imika yacni isma control karaysid xaggan background-ka isma control karaysid sawirka oo dhan buu ku wada controlaya marka waa kaasa tan iyo intaan casharka dambe ama videoga dambe dib ugu kulmi doono waa walaalkiin oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh